Assalaamu calaykum daawada soo dhawow waxaa jira dhacdooyin ku saabsan dambiilayaal ka baxsada xabsiya ammaankoodu uu yahay kuwo adag iyagoo aan la qabanna xabsiga ka dhunta ammaankaasina burburiya bal ka waran haddii xabsiilo uu albaabka hore ee xabsiga uu si fudud uga baxo isagoo la wada arkayo isla markaasina aan wax xabsiya qabin waa arrin la yaab leh magacaygu waa cabdixakiim calaad muuqaalkan ayaan idinkugu soo gudbinayaa baxsasho xabsi oo cajiib ah oo ka dhacday waddanka Mareykanka iyo siday u suura gashay ku soo dhawow muuqaalka inta aanan u gudagelinsa ha hilmaamin inaad subscribe saarto channelka si aad u daawato muuqaalada xiisaha leh ma jirto sheekooyin baxsasho oo cajiib ah oo la sheego mar haddii laga saaray tan uu sameeyay ninkan u dhashay waddanka Mareykanka Frank Abagnale ayaa lagu magacaabaa ninkani waxa uu waayihiisa nololeed sameeyay faldambiyeedyo waaweyn faldambiyeedyada ayaa waxaa ka mid ah kii lagu soo qabtay waxaana uu markaasi ku sugnaa garoonka diyaaradaha ee John F Kennedy ee magaalada New York Frank falka lagu qabtay ayaa ahaa inuu iska dhigayay duuliye diyaaradeed isagoo ahaa dambiile lagu raad joogay Frank ayaa sheegay inuu kaxeynayay diyaaradda markii ay duuliyaha xaajo qabato isagoo u sheegay inuu duuliye qaas ah yahay isla markaasina nasiin kara duuliyaha saxda ee diyaaradda ayaa rumaystay hadalka ninkan uu sheegayo sidaasi ayuuna diyaaradda ku kaxeynayay xiriirada uu la sameeyay garoonka John F Kennedy oo ay diyaaradda ku soo degaysay iyo sida uu ula macaamilay shaqaalaha garoonka ayaa lagu aqoonsaday in mid ka mid ah baylodada diyaaradda kaxeynaya ay wax ka qaldanayeen kadib diyaaradda markii ay soo degatay ayaa halkaasi lagu qabtay ninkani isagoo lagu eedeeyay inuu nolosha dad badan uu khatar geliyay iskana dhigayay duuliye aanu ahayn intaasi kadib Frank waxa lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah oo ay ku jirto eedamihii hore lagu haystay maadaama uu geystay faldambiyeedyo badan waxaana loo taxaabay xabsiga balse in yar kadib ayaa waxa uu helay fursad cajiib taasoo ah in laga wareejiyo xabsiga uu ku xirnaa loona wareejiyo xarun dadka maxaabiista lagu hayo ku taala magaalada Atlanta ee dalkaasi Mareykanka balse waxa uu farxad yar dareemay markii uu ogaaday in sarkaalka sare isaga soo kaxeeyay uu soo hilmaamay waraaqadihiisa xabsiile ee aqoonsiga Frank Abagnale ayaa isku dayay inuu ka dhaadhiciyo saraakiisha xabsiga ku sugan inuu yahay shaqaale FBI ah balse matalaya xabsiile dharcada isla markaasina loogu talagalay howlgalkan uu ku sheegay mid gaar ah wuuna ku guuleystay inuu sidaas sameeyo waxaana saraakiisha xabsiga ka dhaadhacday in ninkan uu yahay FBI ku dhex dhuumanaya maxaabiista oo halkan loo soo diray sababta isweydiinta leh oo qorshihiisa xabsiga uu ugu suuragalay ayaa ah in badanaa mas'uuliyiinta xabsigan ay sameyn jireen dhacdooyin sidan oo kale ah si ay u tijaabiyaan xabsigooda iyo xiriirka askarta iyo maxaabiista ka dhaxaysa Frank intii uu xabsiga ku jiro waxa uu ka duwanaa maxaabiista kale isagoo si gaar ah ayaa loola dhaqmi jiray waxaana loo maamuusi jiray si ka duwan sida maxaabiista kale intaasi kadib waxa uu saaxiibtiisa kula xiriiray telefoon waxa uuna u sheegay inuu xabsigan ku xiran yahay isla markaana qorshihiisa baxsashada ay u fuliso sida uu isagu doonayo iyadoo iska dhigaysa qoraal madax banaan oo wax ka qoraysa arrimo la xiriira tallaabooyinka badbaadada dabka ee xabsiyada ayay waxay heshay kaarka xiriirka ee sarkaal CW Dunlap oo ka tirsan waaxda xabsiyada federaalka xabsiilaha saaxiibtii oo lagu magacaabo Sabrina ayaa waxay soo bedeshay nambarka kaarka ku qoran oo keeda ayay ku qortay waxay u soo gudbisay Frank oo xabsiga ku jira isaguna si uu uga dhaadhiciyay inuu yahay dharcad xabsiga loogu talagalay oo aanu shaki ku jirin ayuu waxa uu kaarkii ku wareejiyay saraakiisha xabsiga Frank ayaa waxa uu sidoo kale haystaa kaarka Joseph Shea oo ah FBI-ga garoonka diyaaradaha ka soo qabtay Frank oo ay saaxiibtii soo heshay kaarka xiriir ee Joseph Shea ayay nambarkeeda ku bedeshay kiisa Frank waxa uu u sheegay saraakiisha xabsiga inuu doonayo inuu la kulmo wakiilkiisa FBI-da oo uu ku sheegay mudane Joseph Shea arrimo degdeg ah awoodeed waxay u yeereen nambarka ku qoran kaarka wakiilka oo ah saaxiibtii Sabrina si ay u wada kulmaan Sabrina ayaa waxay u sheegtay saraakiisha xabsiga inay Frank kula kulanto banaanka xabsiga oo xoogaha ay dibadda u yara baxaan si ay arrimo qarsoodi ah uga wada hadlaan markii ay saraakiisha xabsiga soo wacayeen nambarka Sabrina ayaa waxay ugu dhiibtay mid ka mid ah asxaabteeda amaba qof ay soo wacday si uu isaga dhigo Joseph Shea oo ah ninka FBI-da u shaqeeya saraakiisha ayaa ogolaaday inay sameeyaan sida ay inantani doonayso oo ay Frank kula kulanto banaanka xabsiga Frank ayaa xabsiga ka soo baxay isagoo si xaraga leh u socda loona qaatay mid hoos ka qoslaya daqiiqado yar kadib Sabrina ayaa gaarigeeda waxay ku kaxaysay Frank sidaasi ayuuna xabsiga uga baxay isagoo aan la soo dabagelaynin Sabrina ayaa si degdeg ah ugu kaxaysay boostejada basaska ee magaalada Atlanta halkaasi ayuuna waxa uu ka raacay bas u socdaalaya magaalada New York isagoo intaasi kadibna ka sii raacay tareen ku sii jeeda magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka isbuuci ayaa ka soo wareegay baxsashada xabsiga Frank ayaa isku dayay inuu ka baxsado dalka Mareykanka waxaana uu doonayaa inuu u baxo dhanka iyo dalka Brazil Frank oo ku guda jira diyaarinta qorshihiisa uu ku tagi lahaa dalka Brazil ayaa waxa uu si kedis ah ku hormaray gaari boolis leeyahay mar uu ku sugnaa magaalada New York askarta gaariga saaran oo ka shakiyay ninka hortooda dhaafaya ayaa ogaaday inuu yahay ninkii lagu raad joogay sidaasi ayaana ugu dambeyn lagu soo qabtay
xabsi ku yaal magaalada Pittsburgh ee gobolka Virginia ayuu waxa uu ku soo qaatay 5 sano oo waayihiisa ah. Markaa kadib waxaa loo sii daayay shuruud ah inuu la shaqeeyo FBI-da si loo soo qabto kumanaan kale. haddii aad is leedahay waa muuqaal anfacaya la wadaag asxaabtaada si ay iyagana kula daawadaan. waad ku mahadsan tahay adiguna daawashadaada.